muddooyinkanba aad baa loo hadalhayay Maxamed Cawaale oo magaciisa dhabta ah uu yahay Looga Yuusuf oo ka soo jeeda deegaanada Somaliland oo magaalada Muqdisho ku lahaa xarun shirkadda lacagaha qalaad lagu sarifo ee dhinaca online-ka ee Forex loo yaqaano iyadoona uu halkaasi muddo uu ku sugnaa lacago ka ururiyay qaar ka mid ah dadka reer Muqdisho waxaana lacagtaasi la tuhmayaa inay dhan tahay 20 milyan oo dollarka Mareykanka isagoo u baxsaday mar dhow deegaanada Somaliland halkaas oo uu ku tamashlaynayo iyadoo aysan jirin wax cadaalad ah oo ay heleen dadkii dhibaatooyinka u maraya lacagihii ay u dhiibteen. marka loo eego magaalada caasimadda ah ee Muqdisho sanadihii ugu dambeeyay aad ayay ugu soo badanayeen guud ahaanba shirkadaha ka shaqeeya arrimaha lacagaha qalaad sarifkooda ee dhinaca online-ka ee Forex loo yaqaano. haddii aynu ka hormarno Fortrade shirkadda lagu magacaabo ayaa jirta bishii Abriil 2020 waxaa la xiray oo welina xiran milkiilaha shirkadda Fortrade ee magaalada Muqdisho fadhigeeda uu yahay Cabdixakiin Xuseen Axmed. wuxuu ku xiran yahay xabsiga dhexe wuxuu lunsaday lacagihii macaamiisha ay u dhiibteen sida lagu eedeeyay marka la weydiiyeyna wuxuu leeyahay lacag aan arkay ma jirto. waxaa sidoo kale jira shirkado caanka ah magaalada Muqdisho oo dhinaca isbeddelka amaba kala wareejinta lacagaha qalaad ee dhinaca online-ka ka shaqeeya waxaana ka mid ah shirkadda Hubaal Forex. waxaa waqtigan xiran oo aan shaqaynayn shirkadda Hubaal oo ka mid ahayd shirkadaha ugu aaminsan Forex-ka marka loo eego guud ahaanba dadka Muqdishona ay si gaar ahaaneed uga dambeeyeen. waxaa la weysan yahay lacago badan oo shirkadda loo dhiibtay oo ay doonayeen dadkii u dhiibtay in faa'iido ay ka helaan. dadka ay Hubaal lacagta uga maqan tahay waxaa ka mid ah mid ka mid ah dhalinyarada ugu caansan magaalada Muqdisho oo sheegay in 6,000 oo dollar shirkadda uu ku tuhmayo iska badaa faa'iide lafihiisii xitaa uu waaysan yahay. 252 Forex shirkad lagu magacaabo ayaa jirta milkiilaha shirkaddan 252 ayaa afcad ku yiri waan qasaarnay sida sharciga uu yahay haddii wax la qasaaro markasta macaamilka waxa uu leeyahay lacagta lafihiisa kaliya faa'iidada ayaa la qasaari karaa. shirkadda 252 ayaa la ogaaday in markii horeba aysan ahayn shirkad jirta haddana dadka lacago ayay u dhiibteen iyadiina waa la xiray. dad badan oo shirkadda ka shaqaynayay ayaa xabsi ku jira xilligan oo baaritaano ay ku socdaan. shirkadda ugu hadalhaynta badan ee lacagtii ugu badneed dadka reer Muqdisho dhacday waa shirkadda Future Forex. waxaa furtay wiil reer Somaliland oo markii dambe 20 milyan oo dollar oo taalay shirkadda oo ay lahaayeen dadka reer Muqdisho la baxsaday isla markaana siyaabo kala duwan loo hadalhayo. haatan oo uu Hargeysa joogo waxa uu dhawaan afcad ku yiri aniga 60,000 oo dollar anigoo wata ayaanay mid Muqdisho anigoo milyaneer ahna waan ka tagay. Maxamed Cawaale waa dhab waana xaqiiq in uu lunsaday lacagaha dad boqolaal ah oo magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ku nool kuwa oo isugu jira dhalinyaro waayeel caruur agoon ah iyo ganacsato reer Muqdisho iyadoona ilaa iminka aysan jirin cadaalad dhab ah oo ay heleen. Maxamed Cawaale oo loo garan og yahay Looga Yuusuf oo ka soo jeeda deegaanada Somaliland markii uu dib ugu laabtay Somaliland waxaa loo dhigay mashxarad aan caadi ahayn iyadoo ay muuqatay in uu lunsaday lacagihii Muqdisho isla markaana uu ku tumanayo. sidoo kale waxa uu dhigtay aroos inaba aan caadi ahayn oo lacago fara badan ay ku baxeen. hase ahaatee waxa uu leeyahay aniga cid aan dembi ka galay ma jirto sidaa daraadeedna intii Muqdisho aan ku sugnaa waa lay handaday oo mas'uuliyiin ka tirsan dhinaca ammaanka ayaa ay handaday baad ayay i weydiisteen sidaa daraadeedna lacago badan ayaa iiga xayiran dhinaca iyo bangiga dhexe iyo weliba Premier Bank isagoona eedeyn kulul u jeediyay dhinacyada la xiriira dhinaca bangiyada oo uu sheegay in ay handadaad u geysteen inta uu ku sugnaa magaalada Muqdisho. mid ka mid ah qoraalada cajiibka ah ee uu soo dhigay Maxamed Cawaale oo loo yaqaano Looga Yuusuf magaciisa dhabtana uu yahay waxa uu yahay
iyadoo uu shacabka Soomaaliyeed la wadaagay fariin ku saabsan in Universal TV aysan la soo xiriirin, waxaana arrintan uu ku keenay iyadoo wariye Cabdixafiid Maxamuud oo ka tirsan TV-ga Universal uu shaaciyay in ay la xiriireen Looga Yuusuf si ay wax uga weydiiyaan eedeymaha dul hoganaya, hase ahaatee taleefanada uu ka jawaabi waayay, isla markaana haddii uu arko wicitaanadooda ay rajo ka qabaan in dib uu Universal TV ula soo xiriiro si wax looga weydiiyo lacagaha uu dhacay iyo halka ay ku dambeeyaan. waxaana qoraalkiisa uu ku bilaabay, waxaan shacabka Soomaaliyeed u cadeynayaa inay been abuur tahay xiriir ay ila sameeyeen Universal TV oo uu matalayo wariye Cabdixafiid. sidaad u jeedaan markaan arkay qoraalkiisa, waxaan hubiyay qaybta inbox-ka fariimaha, waanan ka waayay wax xiriira, waxaanan u diray nambarkayga khaaska. haddaba wariye Cabdixafiid waxaan u sheegayaa inaan ka warsugayo inta uu ila soo xiriirayo, waxaana ugu baaqayaa wariyaasha inay iska hubiyaan wararka been abuurka ah ee ay shacabkooda u gudbinayaan. aniga ma ahi nin ka cararaya su'aalo, horey baa layga wareystay dhowr jeer TV-yada Soomaalida, waanan ka shaafiyay su'aalo badan oo ay u weydiiyeen. ugu dambeyn, wariyahan waan sugayaa inta aan iska helayno, ayuu yiri Looga Yuusuf oo magaca Maxamed Cawaale magaalada Muqdisho ku joogay. sidoo kale dadka baraha bulshada caanka ka ah ayaa arrintan soo farageliyay oo aad u hadalhaya, iyadoona ay sheegayaan dadkaas qaarkood oo isaga ku heeb ah inuu yahay nin dhacay hantida shacabka reer Muqdisho, isla markaana loo baahan yahay sidii wax looga qaban lahaa xaaladiisa. warar hoose oo uu TV-ga Hiil Shacab helayo waxa ay muujinayaan in Looga Yuusuf arrintiisa ay noqotay mid gaartay qaar ka tirsan beelaha degan magaalada caasimadda ah ee Muqdisho, isla markaana qorshuhu uu ahaa in odayaal dhaqameed ka tirsan beelaha Muqdisho ay tagaan deegaano ka tirsan Somaliland si arrintan wada hadal dhab ah looga yeesho, laakiin weli ma suuragelin. waase ay dhici kartaa arrintaas inay ku dhaqaaqaan odayaal dhaqameedka. dadka dhibaatada ugu badan ay soo gaartay waa dad reer Muqdisho ah oo dhalinyaro ah, kuwa oo qaarkood waxbarasho ku jira, qaarkood han ganacsi leh, halka kuwa kalena ay yihiin kuwa qoysaskooda iyaga laf dhabar u ah oo doonayay lacagaha faa'iidada ah ee helaan in nolosha qoysaskooda iyo toodaba ay ku sii dibiraan. haddii aynu eegno, waxaa ka mid ah qoraalada cajiibka ah ee uu soo dhigay Maxamed Cawaale oo loo yaqaano Looga Yuusuf boggiisa Facebook-ga. waxa uu ku yiri, one trade oo aan galo jimco keliya, waa hal ganacsi oo aan galo jimco keliya, ayaa waxay ii iibisaa gaariga aan wato oo ku kacaya $100,000. meelaha su'aalaha ugu badan ay ka yimaadeen ayayna qayb ka tahay ninkan oo markii uu tagay deegaanada Somaliland ku socday gaari qaali ah oo ay adag tahay xitaa in mas'uuliyiin ka tirsan Somaliland ay iminka qaataan. gaarigan ayaa waxa uu yahay mid aad qaali u ah, isla markaana la dareemayo lacagihii laga qaatay dadka caasimadda Muqdisho ku nool in uu ka iibsaday. dadka baraha bulshada caanka ku ah ayaa sidoo kale waxa ay aad u hadalhayaan arrinta ku saabsan Somaliland oo diiday in deegaanadeeda laga furo kiisas ka dhan ah Looge, iyadoo la sheegay in waxa dacwad ah aysan ka oolin maxkamadaha Somaliland aanan la geyn karin, maadaama dadka reer Somaliland uusan dhibaato u geysan gudaha Somalilandna uusan faldambiyeed ka geysan. Looge waxaa la aaminsan yahay inuu dhowaan la shiray wasiirka cadaaladda Somaliland uuna kala hadlay arrimo la xiriira kiiska isaga iyo u dhaxeeya dadka reer Muqdisho iyo baadigoobka lagu hayo, waxaana shirkaasi kadib wasiiro ka tirsan Somaliland ay si cad u sheegeen in Looga uu yahay muwaadin reer Somaliland oo dhibaato aan ka geysan deegaanada Somaliland, sidaa daraadeedna uusan ahayn qof dambi ku jira. waa arrin cajiib ah, waa dhacdo xanuun badan, waa murugo ay dareemayaan guud ahaanba dadka ku nool magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. dowladda federaalka ah ee Soomaaliya si rasmi ah kama aysan hadlin dhacdadan xanuunka badan, laakiin waa dhacdo ay dareemayaan xanuunkeeda guud ahaanba dadka ku nool magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. ma ahan oo keliya hal qabiil, waa dadka Soomaaliyeed ee ku nool magaalada caasimadda ah ee Muqdisho.
Looge ayaa iminka waxa uu yahay mid hadalhayntiisa weli magaalada aan laga joojin, waxaana markii uu ka baxsanayay magaalada Muqdisho uu ku baxay gaaray isaga oo safar dhulka ah ku tagay Hargeysa, halkaasna markii dambe lagu arkay isaga oo tamashlaynaya 20 milyan oo dollarka Mareykanka ah oo uu ka dhacay shacabka ku nool magaalada caasimadda ee Muqdisho. Intaasi waa xogihii ugu dambeeyay ee la xiriira Looga Yuusuf oo la baxay magaca Maxamed Cawaale oo ahaa mid ka mid ah madaxda shirkadaha qasaariyay shacabka magaalada Muqdisho oo iminka ku sugan deegaanada Somaliland, isla markaana inkiraya in dadka ku nool magaalada Muqdisho uu ka dhacay lacago iyagu ay leeyihiin. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar, gambaleelkana furo si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee helaya macluumaadka saxda ah ee sida joogtada ah aan idinkugu soo gudbino. Hiil Shacab TV waxa uu si joogto ah idinkugu soo gudbinayaa warar, barnaamijyo xaqiiqda ku saleysan oo ka fog